cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani oo welinaya xubno ka mid ah saraakiisha xisbigaasi oo booqasho socdaal ku yimi halkan waa xarunta guud ee isbitaalka magaalada Hargeysa oo xiligan ay yaalaan dhaawacyo kala duwan oo isugu jira kuwii ku waxyeeloobay shaqaaqadii koobneed ka dhacday deegaanka Darweyne ee degmada Elafweyn ee gobolka Sanaag iyo sidoo kale dhaawacyo kale oo halkan lagu daweynay muddooyinkii laga soo gudbay ayaa markii uu soo kormeeray isbitaalka qayb ka mid ah waxa warfidyanada la hadlay waxa uu la hadlay warfidyanada isagoo sharaxaad ka bixiyay ujeedada socdaalkiisa uu halkan ku yimi reer Somaliland ee ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay Darweyne alxamdulillah rabbil caalamiin intii badana soo aragnay xaaladoodu way fiicnayd dhaawacyo way qabeen laakiin intii badan xaaladoodu aad bay u fiicnayd marka hore intii dhimatay baan ilaahay naxariis weydiinayna qoysaskoodii Somaliland oo ka taxsiideynayna marka labaadna inta dhaawacana ilaahay waxaan u weydiinaynaa caafimaad sariic ah in ilaahay bogsiyo oo caafimaad siiyo mar labaadna waan ku baaqaynaa baaqi nabadeed aan ku baaqnay hore ee ahaa in colaadda la joojiyo oo dagaalka la joojiyo sugidda amniga iyo dhamaystirka colaadda waa waajib iyo xil saaran xukuumadda waxaanu jecelnahay xisbi ahaan tallaabo kastoo lagu sugayo ammaanka inaannu gacan ka siino xukuumadda iyo salaadiinta iyo cid kasta u kacaysa hawsha hadday culimo tahay laakiin waxaa xilkaasi saaran yahay in heshiisyadii hore la fuliyo ee ay ku heshiiyeen iyo in colaadaasi soo noqon iyo in maanta ammaanka la sugaba xilkaasi waa xil saaran xukuumadda midaan fahmin mal aniga imu eedayne telefon buu ii soo diray waa runtii waa mahadsan yahay madaxweynuhu anigoo boora ma jooga wuxuu igu wargeliyey in colaadi halka ka dhacday aad buu ugu mahadsan yahay in igu wargeliyo waxaanu anigii madaxweynuhu isla qaadanay inaan baaq nabadeed ka jeediyo arrintaa baaqii nabadeedna isla saacad kadib baan ka jeediyay anoo boora ma jooga wax kaloon ka ballannay madaxweynaha anna waxaa ku yidhi dee xilku idinku saaran yahay aduu ku saaran yahay markaa madaxweynaha waan keenay inaan iskaga khaldamin wasiirkii gudaha iyo cabdiraxmaan cishe gudoomiyaha oo warfidyanadu dhanka kale wax ka weydiiyeen dhawaaqyo isaga lid kuwa oo maalintii shalayd ka soo yeedhay madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo la xidhiidha dhacdada ka dhacday deegaanka Darweyne ee degmada Elafweyn iyo sidoo kale tabashooyinkii ka soo baxay doorashadii madaxtinimada ee 13 November sanadii 2017 ka qarsatay gudaha Somaliland ayaa waxa uu ku jawaabay sidan siday ku dhamaatayna waynu ogeyn guusha uu sheeganayo madaxweynuhuna siday ku timi waynu ogeyn laakiin xisbigu wuxuu go'aan ku gaaray isagoo tudhaya arrintaa in madaxweynaha kursiga looga hadho marka madaxweynuhu malaad muu rumaysan in looga hadhay weli kursigii ha loogu dhaarto madaxweynaha ugu dhaarto Faysal Maxamed Aadan Faysal TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.